السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرتي سود هذا أسبوعين الحوجة 10 معنا سوقين حوجة كستحنون بس كشري سو مركا 10 كلمات وحنا نقني وحلو يقانو Action Center مركا هدي أتصبرتي ديسكتوب هدي أتصبرتي تاسكبر هدي أتصبرتي فهم ير أو كسبسن ستارت maanta waxa aynu baranaynaa waxa loo yaqaano Action Center. Marka Action Center waa maxay? Su'aasha ugu horeysa oo aad isweydiinaysid ayaa waxay tahay waa maxay Action Center? Action Center waa meesha ay fariimaha kugu soo dhacaan. Tusaalahan hadda markaad mobilka isticmaalaysid sidoo kale fariimaha kugu soo dhaca WhatsApp-ka, Gmail-ka, YouTube-ka channelada aad ku xiran tahay dhan fariimaha kugu soo dhaco kurti waxa kugu soo dhacaan qaybta kore ee mobile. Laakiin computer-ka waa uu ka duwan yahay mobile-ka. Marka meesha ay kugu soo dhacaan fariimaha ayaa raba inaan maanta ku tuso. Marka taskbar-ka marka imaatid qaybtan taskbar-ka qaybta geeska ee midig waxaad ku dhahdaa left click. Marka waxa ku soo baxaya markaan qaybtan bank-kan ama tool-kan ama saando bahalki gabalka yiriska ayaa kaga soo baxay dhinaca midig. marka ugu soo bax marka halka marka hadii aad fiirisid qaybtan kore ayaa waxa ay tahay meesha ay fariimaha kugu soo dhacayaan. Marka fariimaha marka ay kugu soo dhacaan halka waxa kaga soo bixi doona button ah clear all ama clear all the settings ama all notification settings. Dhamaan tirtir ama delete notifications waana sidii caadiga ahayd oo aan ku soo arki jirnay telefonkeena. marka fariimaha hadii ay bataan dabcan waxa sameey jirnay hal mar waxa taamay jirnay clear all intii aan yani mid aan u delete garan lahayn. marka qaybtan kalena waa qaybta hoose oo yani tusaalaha mobilka marka aad yani kor aad yani soo jeedid oo aad hoos u soo jeedid waxa uu leeyahay xayraada wifi internetka kurti waxa dhan buu leeyahay. laakiin computerka waxyaabahaas wuxuu ku leeyahay qaybta loo yaqaano Action Center. marka hadda waxa u filaya inaad fahamtay waxa loo yaqaan Action Center. marka hadda waxaad isweydiinaysaa oo su'aasha labaad ee maskaxdaada ka dhex guuxaysa ay tahay maxaa loo isticmaalaa Action Center? waa ogahay in Action Center ay noqotay ama ay tahayba meesha ay fariimaha computerkayga ay ugu soo dhacaan. tusaale ahaan hadii ay jiraan yani channel YouTube sida Touchbar ama Baro kale oo subscribe ku saaran marka video uu soo geliyo channelkaas meesha ay kugu soo dhacayaan muuqaaladu oo yani fariinta in channelkaas uu muuqaal uu ku soo diray barta ay kugu soo dhacayaan ayaa waxa loo yaqaanaa maxay Action Center waana meesha tan. marka maxaa kale loo isticmaalaa Action Center? Action Center waxa loo isticmaalaa in aad ka furtid wifi-ga hadii wifi-ga uu ku daaran yahay hadii kale bartan inaad ka ogaatid. lacalaha wifi-ga meeshan waa xiray markaan waxa sameeynaya badhahay waa furaya. network-ki hadii aad diyaar saaranaysid hadii kale all settingska dhamaan ee computerka uu leeyahay dhan ayay goynaysaa meesha tan oo settingkii computerka meesha laga sameeyay computer. dabcan mobilka waxa uu leeyahay settings. marka Allahumma musta'an hadii marka qeybaanka xitaa aad sii fiirisid night light-ki VPN-ki connect project hadii uu ku wixii waxyaabahaas marka computerka qaybta intermediate courses-ka ayaad arki doontaa. marka si aad kuwan aad u baratid waa inaad fadlan channelka aad subscribe saartaa si qaybta labaad ee koorsada ama volume-ka labaad ee koorsada oo ah intermediate courses-ka ee Windows-ka hada qaybtan waa qaybta basic-ka laakiin qaybta dhexdhexaadka ah si aad ula socotid. hagaag qayb saddexaad iyadana waxay tahay sidee midabka looga bedelaa Action Center. marka Action Center iyo maxay raadaan start ama taskbar qaybtan loo yaqaan start iyo barka title bar oo ah qaybta kore ee maxay raadaan marka application aad soo furtid qaybta kore ee application-ka iyo geesahan Windows-ka ama shaashada computer geesaheedan hal mar ama hal meel ayaa color-kooda laga bedeli karaa inta badan. marka si color-ka aad uga bedeshid Action Center iyo kuwa kaleba waxaad u baahan tahay inaad tagtid desktop and blank desktop. marka waxaan filayaa inaad taqaanaan blank desktop. waxaan si tagay personalize kadib waxaan si aadayaa meesha loo yaqaan colors. marka meesha hadii aad fiirisid qaybtan kore markii application aad furtid qaybtan kore ayaa waxa loo yaqaan title bar oo ah qaybtan blue ah. tusaalaha hadda meesha start iyaduna waa blue
maxay raadaan taskbar isna waa blue marka action center isna wuxuu noqon doonaa blue maadaama kuwan kalaradaas ay leeyihiin kuwaas ayuu qaadan doonaa marka kalarka uu qaadanaya ama ay qaadanayaan start maxay raadaan taskbar iyo barka title barka iyo oo lagu daray action centerka waxaad ka bedeli kartaa ama aad ka sixi kartaa ama aad ka hagaajin kartaa qaybtan so marka Windows colors baa loo yaqaanaa marka color kasta oo aad jeceshahay baad saaran kartaa hadda aan waxa saaranayaa colorkan oo pointerka uu ku tilmaamayo marka aad u jeedo colorkan marka hadii aan hoos u sii wado meeshaan wuxuu ku leeyahay show accent colors on the following surfaces colorradan oo la yiraahdo accent colors midabadan ha ka soo muuqdaan meelaha soo socda start taskbar iyo action center soo jeeda saddexdan start iyo taskbar oo lagu daray action center marka hadii aan sax ka qaado maxay hadhow yani colorka hadhow ima saaran action center iyo maxay raadaysaa start iyo taskbar ba marka hadda sida u jeedid taskbar colorkiisa waa isbedelay sidoo kalena action center colorkiisi ama midabkiisi waa uu isbedelay marka action center midab uu leeyahay iyo midab uu leeyahay taskbarka iyo midab uu leeyahay startiga dhamaantood waa isku mid marka dhamaantood waxay wadaagaan hal meel ama hal midab ayay wadaagaan hal meelna waa laga bedeli karaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته marka waxaan rajeynayaa in muuqaalkan aad ka faa'iiday hadii uu muuqaalkan uu ku faa'iideeyna waxaan ka codsanaynaa in channelkeena aad subscribe saartid ardada Soomaaliyeedna aad u sheekaysid oo jecel barashada cilmiga computerka si channelku uu noqdo mid weyn channelka waa channelkeeni idinka askale de channelka horumarkiisa idinka mas'uulka ah like-ta iyo share-ta